خميس شلay bay ahayd boorba ka soo kacatnay halkii baan nimankii halkii baas noo qabtay odayaasha hay qarantaas banadaha halkii may iban waxa ka marxaati ahaa oo kamid ahaa Sultan Saleeman sub cadabdan kala yiraahdo anigu ma garanay magacaas cadabdan kala yiraahdo xaq kala hogaaminayay cadabde waxa way hawshii sida uu soo agaasimay anaguna aan marka doonayna inaan gabadhii ka wada hadalno oo dhaxayaan ku wada hadalno arrinka uu nagu deeriyay maanta oo shalay oo ahayd khamiis waxaan maanta halkan ka sheegayaa saddex qodob horta cadabda waxaan leeyahay nibba habeen guuro waxa ka qori habeen kale waraawo mooday waagu waa u bari qori wuxuu yiri waxmaday waraawo qori xalay qori waxa xubada waraabe waxaan qotay qori waxa loo noqon buuraha beena ka inta saanna ciida galo waxaan leeyahay ciida galo haddii faras baalay ninkii dibeysa ka degay meel ka degu waay faras dibeysa ka degay meel ka degu waay makaasa aqal inniya qaas galo leeyahay dhaqanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliland waxaan leeyahay arrinkaasi arrin Soomaaliyada ku fiican maahay diinta islaam ku fiican maahay arrinka gabdhahana waa ogtihiin haddii gabadhooda in la isku dilo waa ogtihiin waa in laga jawaabo Soomaaliland dhaqan Soomaaliyeed ma leh waxaan leeyahay ciida galo haddaas degdeg arrinka uga bixin weydo policy uga bixin weydo raali gelin ka bixin weydo waxaan yeelanaga u taalo Soomaaliland soo sheego salaam alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdullaahi Faarax aniga ku hadlaya magaca Aylada Safeetismo waxaan marka hore u mahad celinayaa dhammaan ummadii Soomaaliyeed ee ka dareencisay dhacdadii foosha xun lahayd ee lagu la kacay fanaanada Safeetismo sida hiil iyo hooba isla garab taagay arrintaana aad uga xumaaday aad baan ugu mahad celinayaa marka labaad sida wadaba sheegeen ciidagal arrintan inkastoo aan u dhaneyn nimankii guddida ahaayna hor yimid ee arrintan nagala hadlayay si dhaqana Soomaalinimo leh hablaha iyo arrintooda lagu arki jiray runtii uga ma hadleen si aan anshaxa ku wanaagsaneyn iyo nolol kulmeen nolol dhaqmeen ballantii ay qabteenna way ka baxeen dabeed halka markay taagan tahay waxaan u sheegaynaa Soomaali meel walba joogtaba inaan arrintan Safeetismo sida laga hadhayn dadkeega iyo Soomaali meel kasta taagan tahay ay arrintaasi si adag looga jawaabi doono